وعنا ونكسن إذا الكيمبا وتضبط كلا إيه برنامج كأنه هندسي هالبور برنامج كاسو هذا يشير أنو كقولنا أما لغو روريو تاريخ ذا يسوعان تاعي ومدة الصومالي دون لا هاي تضبط كان وحين برنامج كأنه كجو رحمة دونا أبوان كيوينا عبد ورسمي بانشي الله يغني عبد جهير قار كميدا مركا جبيدي سي يسوعان تي سي waxa inoo soo tabinaya oo waxa weeye maskaxdiisa si wanaagsan uga soo tabin doona abwaanka daada yar leh Cabdi Dhuux Cabdi oo abwaanada tirada yar leh ee suugaantii abwaanadii hore ay tiriyeen wax ka sii haya ama wax badan ka guntay bal marka hore abwaan ku soo dhaw barnaamijkan aynu qaban doono waa dhawahay Muxsinow aad iyo aad baad mahadsantahay aad iyo aad adiga mudan bal waxaan isku day doonaa dad badan baan garanayn Cabdi Warsame Baanche ama Cabdi Gaheer dad badan baan garanayn oo laakiin gabayadiisu maqlay bal waxa weeye abwaanka taariikhdiisii halku ku dhashay inkastoo waqti fog u dhashay bal haddana wixii aad ka xasuusato bal dadka u yar bayaami waa si wanaagsan Cabdi Gaheer Cabdi Warsame Baanche weeyaane wuxuu dhashay odayaashu markay horta soo tabinayaan xilliyada uu dhashay markii dib baa loo tiriyay xilligu dhintay intii aynigiisu ahaaba dib looga tiri barigi hore 1900 iyo 1800 ma jir dadku caana weyne iyo dirxiile iyo waxbay ku tilmaansan jiray waqtiga marka Cabdi Gaheer odayaashii xilligu dhintay 1800 1889 meelaha ayaa lagu qiyaasaa Cabdi Gaheer wuxuu ku dhashay deegaamadan Oodweyne iyo Hargeysa u dhaxeeya oo markaa reer guuraab u ahaa reerkoodu halkaas uu ku dhashay wuxuu geeriyooday Allah u naxariistay 1958 magaalada Hargeysa ayuu ku geeriyooday halkaas ayaa lagu aasay Cabdi Gaheer wuxuu ka dhashay reer Soomaalida had iyo jeer qaybaha waxa jiray Soomaalidu qaybaha u yar kala qaybsanayd xoolaha iyaga la dhaqdo xitaa way ku kala qaybsanayd dalka la degana way ku kala qaybsanayd beelihii uu Cabdi Gaheer ka dhashay waxay ahayn beelo geeleeya oo geel dhaqata ah oo Soomaalidii hore garanaysa ee marka aan dadkii raashinka iyo waxa yaqaanay ahayna xoorsata dadkii caanaha geel cadkii caanaha geel u gaarka haayeen ayuu ka dhashay geelaas iyo hawlahaas uu inta badan ku barbaaray yaraantiisii ilaa iyo markii uu geeriyoodayna hawsha geela iyo xoolo dhaqatanimada uu hayay Cabdi Gaheer taariikhdiisa kooban isaas ah waxa dhashay inta waan ka yar dhaafay hooyadii magaceedii imika wiiga lunsay laakiin waxaan garanayaa awowgii hooyo xirsi amaan diiriye sugulle ayaa dhalay hooyadii in xirsi amaan diiriye sugulle dhashay aad iyo aad baad u mahadsantay sida wanaagsan ee aad taariikhda u soo korka xaadisay iyadoo Cabdi Gaheer ahaa abwaan weyn oo ka suugaantiisu meel fog ay ku duushay waqti xaadirkan ay joogno qarnigan 12aadna wali suugaantiisa ay nooshahay oo dadku markaa ay isticmaalayaan bal waxaan isku day doonaa qaar ka mid ah gabayadiisii walibana sidaad carabaabtay geela iyo markaa geelu aad ugu dheerin jiray bal gabayadii geela waxaad ka xasuusato gabayadiisii geela wasi wanaagsan Muxsinow wuxuu la qabay horta geel jacaylka Cabdi Gaheer xilliga bicadii uu ku noolaa iyo dadkii uu la noolaa sidii ay ahaayeen buu la qabay wax isaga u gaaramay ahayn waxyaabaha isaga sii muujinayay codkiisa meel dheer gaarsiinayay wax ka mid ahaa gabayga oo Ilaahay ku ilhaamiyay oo dadku ay ogyihiin in gabyaayo ahaa sida awgeed qaadista geela iyo duulimaadka iyana dadkaas uu kala mid ahaa haddana gabyaagu markastoo la duulo ama col la saaro ama geel la soo qaado wuxuu lahaan jiray ragga kala hal buu dheeraan jiray ama qori gabyaannimada way gabaygaay waxba guwaabinaya sida awgeed Cabdi Gaheer rag geela matalan dhulka uu daaqayo iyo geela dhaqashadiisa ama geel reerku inuu lahaado aad u jeclaabo hadiye goor inuu geel lahaado ama beeshiisu lahaato ama qofka aan geel lahayn marka inuu xumaysan yahay buu arkaybo waqtiyada kama Cabdi Gaheer wax lagu yiraahdo geelan iyo waxaad ku xiiqdeen iyo maad iska diis ber kula kaftabe waliba aan ku soo yara sheeka dhaafay Cabdi Gaheer in reer magaalooyinkana yimaado xilligaas oo magaalooyinka Soomaalidu ay aad u koobnaayeen haddana nin aan ka marnayno ceelkan Hargeysa markaa magaalo la asaasay ahaa Cabdi Gaheer ragii iman jiray majlisadeedii ka haasaw jiray inta badan laakiin miigu ah dabeetana wixii uu magaalooyinkii meelahan ku sugan yahay niman ku dhahan war Cabdow maad geelan iyo hawshan iyo iskaga baxdidood Ilaahay wuxuu ku siiyaba iska cibaadaysatay
dabeetana tixiro in kooban inaga soo gaadhay laakiin macno weyn xambaarsan ayuu halkaa ka tiriyey oo uu leeyahay ninkii aan geel lahayn adduunyada waa darxumaysan yahay waa nin daranyaysan waa nin fiqiira magac male uu leeyahay deetana wuxuu yidhi idin bacasa awrkay dhashay iyo aarankay wadatay asxaabihii horeba way ku intifaaceene adduunyada nimaan aakhira nimaan diin lahayn lama ammaanayne adduunkana nimaan geel lahayn laga ilwaad rombu sidaa awgeed cabdigahaar ninkaasuu ahaa geela saasuugu adkaa xilli kale isaga oo doonaya inuu duulo oo col uu abaabulo isaguna uu ka mid yahay ayaa niman ku dhaha cabdow maanta dee watan xiisadu waa cirkee miyaad hawshii baad gelaysaa dadka dana wuxuu sheegayaa maalintii maalmihii uu duuli jiray inay tahay markaa wuxuu yidhi cirka mayaygu waa caadadii muhollin buuxshaaye anna gabayga maantoo kalean mahadho geystaayey haddii culimo maalkeed la dhaco magan ilaahaya soo inay maraa soo akhriy lagu malayn maayo marwa waxay xishootaba haddii maranti loo keeno ninkeedii mudnaa iyo haddii maalkii laga qaado soo inay masayr waalan tahay lagu malayn maayo anna waxaan mastuurtaba haddaan col u maqaameeyo soo inaan horweyn xero ka marin lagu malayn maayo gabayadaasuu cabdigahaar ninkaasuu ahaa had iyo jeer waxaa caddaynaysaa gabayadiisu ay daliil u tahay sida uu geela ku ahaa cabdigahaar ama geelu qalbigiisa ugu jiray way si wanaagsan imika gabaygaa hore aad tiri aakhira nimaan geel lahayn laga ilwaad roon marka nimaan diin lahayn laga ilwaad roon aakhira nimaan diin lahayn lama ammaanayn adduunkana nimaan geel lahayn laga ilwaad roon adduunkana nimaan geel lahayn laga ilwaad roon way bal kullay adduunkana nimaan geel lahayn laga ilwaad roon baa ku jirta gabaygaa hore bayd baa ku jira kullay dad badan bayna daawanaya waxa weeye dhalinyaradan dambe kacday oo markaa aan afkii iyo dhaqankii aan erayo badan ka garanay bal halka adoo dul istaagaya bal maxaad ugu faahfaahin lahayd bartaa waxaan ugu faahfaahin horta meeli waa diintooda dhalinyaradan dambe diinta way taqaanaa oo matalan aakhira nimaan diin lahayn lama ammaanay qofku hadduu toobad la-aan ku dhinto dee aakhira lama ammaanayno ilaahay wuu inoo sheegaya qur-aankiisa iyo axaadiista nebiguba oo dee qofkaasi waa guuldarraysta adduunka nimaan geel lahayn laga ilwaad roon waa laga xarago badan oo laga magac roon oo laga qurux badan ayuunbaa ku soo ururinaya haddii aanu ninkaasi geel lahayn waayo xilliyadii hore waxaa jirtay xilliyada qaarkood ninku haddaanu geel lahayn inaanu shirkaba ka hadli jirinba oo mintee xiniin ku meel mara mooyaane nin ka tegay mooyaane ninku markuu geel yeesho uun oo loo yaqaan ninku hadduu geel waayo inuu jileec isagu uu leeyahay geelaa ku waayay laakiin aan nasiib loo arki jirin marka waa sidaa aad iyo aad baad mahadsantay markaa barnaamijkeena kusii socon doonaa bal weli markaa waxaan ku guda jirnaa gabayadii cabdigahaar uu ka tiriyey geela iyo markaa saamayntaay bulshada ku yeelatay bal gabay kale bal noo soo qabo isna geelaa uu kaga hadlayay waa si wanaagsan waxaa jirtay waqtiyada ka mid ah cabdigahaar oo geelooda oo gala meel la yidhaha dhiito imika waa meel dhow marka dadkan imika jooga loo eego way yaqaanaan dadkan imika jooga laakiin berigaa cabdigahaar beeshooda iyo udubkooda iyo dadkaa uu ka tirsanaa waxay yaanan ceelkan hargeysiya hareerihiisa markaa waqtigaa dhiita way fogayd ummado kala degaano iyo udubba ay kala fogyiin mararka qaarkoodna hoos ka turmiyo colaaday ka dhex dhacaan bay ahayd deetana geeloodu halkaa gala ayuu ninla kaftamay ninkaasi isla beeshoodunbuu ahaa oo laakiin ay kala laf yihiin deetana wuxuu ku yidhi cabdow geeliinu muxuu ka doonay dhiito ciidanku difaacaad haysa haddii col galo caaw dabeed kaftanka qaarkii waa laisugu dhammaynayaa dee dabeetana wuxuu ku yidhi wuu ku qoslay cabdigahaar maxaad ku qosashay wiil wuxuu ku yidhi adeer mahadhooyin horon geystay oo email yaallo ku daaqayaa wiil geelaygu dhiito maxaa ka mid ah wiil mahadhooyinka ku daaqaya geelaygu dhiito wuxuu yidhi dhunkaal baa ku taal geelayaga dhiita loo raray ee dhaya looma weeraro hadduu dhaafo qulunquule dheehiya idiinbaa ku jira dhiba xiniiyaaye haddaan dhaayinay laga baqayn dhugadma daayanay meeshiiyo dharyuu daadsan yahay dhiiggii reer caliyee dhulmadaa la moodaa lafaha tuulan dhagaxabuuree dhabayacana way nagu og tahay dhiirantii karine waxaa lagaga dhowrsaday halkaan dhigay suldaankiima anigoo dhallaana iyo haddoon dhaban cirooloobay intaasaan sidii aarka dhaca dhuungalaa xigaye kuwiinaa dhiraa waabayow haygu dhelinay
marka waxaad arkaysaa cabdigahir geela haygu dheelin yani ciyaartiga daayib marka waxaad arkaysaa cabdigahir geela meesha uu daaqayo hadiya jeer barigii hore aniguba waan soo gaadhay geejira waan soo maray xilliyadii aydadii oo dee dhaweyd boo ragga qaarkood imka la yaabayaan marka aan sheego maraan geela kaxeeyey waxaa jirtay geela barigii hore waan iska kibir wadi jiray waxaad arkaysaa isagoo dhintaa in lagu xansasa daaqayo dareena ayaa lagu leeyahay halkani geela waa ku yar huur bay noqotay waxaynu u raraynaa meel yamaarig iyo waxlaho kale marka geela barigii hore daaquna lama daynayna magac baa la dooni jiray waxa la oran jiray geela iyagu daaqa oo gala caado geelba geelu ka sareeyo ee hawd uu ka xigo ayuu ka faam iyo sheeg ka wanaagsanaa magaras marka siyaabahaas ah in marka cabdigahayr waqti kale waxa jirtay mar kale cabdigahayr wasla geelii uune geelu barigii hore wuxuu ka cabi jiray ceelayda ceel gaaban oo halkan ku yaala quracla iyo il dheemeed iyo dhulkan uu ka cabi jiray dhanuu ha ceelkaasi inka geela dhanacidi lama dad barkadaas ma loogu shubaaye geelu marka uu nafaqo u ahaa marka Soomaaliga daba ku sheego ee dadku fahmayaan geela qaras buu ka keeni jiray candhool hasha candhoolaba ay buu bixi jireen markuu geelu dadna ka dayreysta caadiyo sirow kal dambeedka ceel fadhiisiga waxa loogu shubi jiray ceelka marka ceelka reeraa dul oo jiray reer arila ah hadiya jeer oo meelaha biyaha leh arigu kama fogaado geelu laakiin wuxuu ka soo arooriyay dhul qarfa ah dabeetana halkaas uu iimaan jiray geelu xilliyada kamid ah cabdigahayr iyo geelashoodii ayaa ceelka yimi sida Soomaalida geela taqaano geela ceelka dhanaha la yiraahdo inta gelinka hore loogu shubo gelinka dambe lama fuliyo inta loogu shubo gidiga maalintii uu cabo ayuu hadana meel ku dhow baa lagu fuliyaa si birta loogu soo celiyo uu sabanayaa baa la yiraahdo oo biyaha qaraar geelu kama qaado inta biyaha macaan ka qaado in ka badan buu biyaha qaraar geelu ka qaado cabdigahayr inta reerihii meesha yaalay buu geeli ariga kaga tuntuntay cabdigahayr waxa la igu gabaygaasi gabaygii ugu dambeeyay uu tiriyo ayuu ahaa cabdi warsame baanji markii uu geeriyooday ka yar hor uu jabay baa la igu yiri meelahan ood weyniye meelahan isagoo ka yimi ayuu meel dhiiriya ku siibtay meelahan sigtu ka jabay cabdigahayr dadna intuu yara kamay dhutinaya oo ceel hargeysa jooga ayay inamadii geelay raggii waday u yimaadeen wax ku dhaanyo geeliban ceelashkeena cabdoogo niman cayn kan oo halkan yaalo reer arila ayaaba noo hanjabay wallahi dad geela lagu soo dul fulisay maalinta inaan ka qaadi doono cabdigahayr dadna arrin la yaabay ku noqoto geela xaggan waqooyi iyo hoostan culba anigu ugama filim geelaas rag kalaan isku aragnoo badan oo xagga jiro xaggii mooyaano tan arrin la yaabo uu leeyahay nimankuna niman dadka marka reer waqooyiga ahaa ama biyaha joogay hadiyo goor dadka ganacsatada ah ee barbariye bulxaarna hadiyo goor ayagu baa ahaa dadka ingiriiskiina hoos joogay oo lacagna haysta dukaamo haysta wadan ladan bay ahaa nimankii markaa waaninaya uu leeyahay warnimayo caanihin macdina iska daadinine ana geelaygan iyo amaan geliya idinkuna nimcadina isku ya hayso eersanina halka gabay dheer buu cabdigahayr ka tiriyay in wuxuu sheegay geeran ragga isku soo arkeen iyo halka maanta colku kaga kacay inaanay isu dhaweynba fajacbay ku noqotay inta wuxuu geeli bulaala iyo dig weyn erayo waxa ku jira gabaygan imika waqtiyadan casriga ah anigu aan maqlay meelaha gabaygan ku jira aan anigu maqlay iyo erayadan maqlay kulli aduguna waad garan doontaa wuxuu geeli bulaala iyo dig weyn baadka ka ileeyay geeli mareerkii barqaday baarta ku abeeray qaalmihii buluugiyo dharkii bari la moodayay boqorkooda geelan ku dilay bahina geesaale ee baarqabkiisuna sidii bigil u guuxayay waa been shalay weerareen baa Ismaaciil leebida biciidii jartay ee balada doonaysa nin buraashad haystaa ma oga bahalka noo yaale badii tirib bila soo gasheen baqanna maysan wad garanaysaa bad tirib bila ku talba dhawid ma ogaado Liibiya waa badda ka shaqeysa badii tirib bila soo gasheen baqanna maysaane idinkaaba baabuuradii boodhan iibsaday idinkaaba reer baasarciyo bisla xoogsaday idinkaaba giniga bartacas boosta soo dhigay idinkaaba bakhaara leh sidii baaniyaalada idinka sidii bahabar nuux beedka la simay bigayska iyo xilliga diiran bad balaxsanaysaane burcadkiyo wankaasay idin hoday boqolka siiseen nin sanduuq u buuxaaba u baarcadeyn jiray habari marka qabiil ayagu nimankaasi ka tirsanayeen oo badan oo markaa aan laakiin ku jirin halkan markaa la oolin ayuu leeyahay war xabadii soo gurmaayay intaan idinba iman cagtayda marnay
habar yoonis way badan tahay bow badartamaysaanee reeraha bancawl iyo ku jira beeratiya looya bakhtigiinna inay haybiyaan beri fog mooyaane birmad baa nugaal kaaga iman haw buhaamine ee bilaash weeye muuse cabdallahan baasha soo degayee abtiyaal burkiinaa cuno ha isku baaqine haddii kale bishaas soonfureed qiiqa baxay markaa cabdigahayr geele ilaa heerkaasu difaacay xitaa mararka qaarkood sokeeyuu ka difaacay shisheeyana uu ka difaacay sidaasay ahayd markaa muxsinow aad iyo aad baad abwaan u mahadsan tahay gabaygaa wanaagsan ee waxa weeye ee abwaan cabdigahayr waxa weeye fariinta uu ku dirayey kolley gabayga waxaa ku jira dee reera markaa abwaanku magac dhabay iyadoo markaa dee waktiga markaa aanay qabyaaladu sidan haynee garashown iyo baadi soo cunahayd markaa kolley bulshada dee gabaygan abwaankan muu tirinaya abwaan horaa lahaaye waxa weeye abwaankuna saasuu gabayga u tiriyo dee waxba laga bedeli kari maaye dadku yaanay si kala u arkay weli barnaamijkeenan kusii socon doonaaye gabayga xigeed noo haysa muxuu noqon doonaa kolley cabdigahayr waa nin suugaan badan loo suugaantiisa ka goyan mayno caawiyo beritoole waa baddaasoo irbad lagu tuuray kolley laga goyan maayo suugaantiisaan filayaa gabayo badanna dee geela wuu ka tiriyey ilaa imika dhowr tixood baad tirisay welina weyn ku jirnaa barnaamijkii bal gabayo kalood ka xasuusato abwaanka oo isla geelaasuu ka hadlaya waxaa jirtay cabdigahayr muxsinow haddii aynu kuba dhaafno matalan maanta aynu kusoo gabagabayno tix isla waayahaa matalan nin cabdigahayr inaanu dagaal kaba necbayn matalan haddii matalan horta lama odhan karo dadkii waqtigaa joogay dagaalka uu ka jeclaayo dee isagu ka horreeyey oo dadku la mid buu ahaa laakiin haddii bilaaba dagaalkidiisa yimaado oo matalan oo matalan dee si qayladhaan degdegiba ay soo dhacdo cabdigahayr muu ahayn ragga nixi jiray wuxuu jeclaa inuu markaasuun la tashado dagaal iyo taa degdega la israaciyo laakiin muu jeclay in la calaacalo la yidhahdo waxaanaa dhacay caynkan tix arrintaa ku saabsan oo geela in yar ka yar weecsan laakiin haddana iska xil waqti magarasa arrimahaasun isaga eeg ayaynu kusoo gabagabaynaa barnaamijkeenna maanta ood odhanayso cabdigahayr islaamnimada iyo culimanimada iyo diintana waxbaabu ka yaqaana marka qaarkood markuu gabaygaa tirinayo waxaa jirtay cabdi warsabe baanji isagoo jooga ceelkan hargeysa ayaa waqtigii ingiriisku waddankeennan haystay ayay ahayd nin sarkaala oo la odhan jiray feedhoole oo ingiriis ahaa ayaa nin cabdigahayr isku beel yihiin ku dilay magaalada burco cabdigahayr beeshoodu beel ballaaran weeyaan imikadan base dadku u yaqaanaan ilaa halkan ceelka hargeysa ilaa ceergaabo way taxan tahay sidaa awgeedin ilaa halkan ilaa ceergaabo iyo gobolkan togdheer ma kala goon iyo gobolka moorodijeex markaa dadka markaan leeyahay isku beel yihiin cabdigahayr reer hargeysu ahaa haddana isku beel yihiin reer burco yaan halkaasaan ka yar shaafiya dadka in cabdigahayr isku beel yihiin ayaa dilay ninkaa feedhoole la odhan jiray sarkaalka ahaa dabeetana dee waad garanaysaa ingiriiskii oo nin sarkaala laga dilay oo waddankana dawlad ka ahaa gumaystana dhinac ka ahaa dabeetana halkaa xaalad baa kasoo korodhay dee waxay noqotay in geelal badan la xareeyo beeshii cabdigahayr uu ka tirsanaayo ninka dishay wax badan la sameeyo dabeetana nin baa kula kaftamay gudahan ceelka hargeysa isla beeshoodaa ninka dishay aan ahayn kaftan dee laysu dhuubayo buu ku yidhi wuxuu ku yidhi cabdigahayrow waad og tahay inaad ninkaa disheen beeshiinii ingiriisku gelayaa waa laga yaabaaba in rag badan laga laayo dhibaataydi ka soo gaadho adiga saaxiib baynu nahay aad iyo qoyskiina aanu ku magan gelina cabdo waa xagga yagan maadiman buu ku yidhi haddaan ninkaa magac dhabo goollaa la odhan jiray reer hargeysa uu ahaa dabeetana cabdigahayr wuu ku qoslay wuxuu u sheegay inay arrintan arrin gaaliya muslim tahay arrin qolo iyo qolo aanay hayn ay ka weyn tahay qadiyadii hore laga dagaalami jiray laga hadli jiray marka haddii aanad adigu noogu imanayn buu leeyahy annagu waa isdifaacayna maganaanu cid ugu tagna iska daayo markaa wuxuu ku dhaadanayaa cabdigahayr khulafa raashidiinta iyo nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ayuu ku dhaadanayaa u leeyahy annagu ilaa nebi maxamed geesiin baan oo waan iska celin jirnay gaalada iyo wixiina soo doontaba ma garata markaa gabaygaasaan kusoo gabagabanaya wuxuu odhanayaa gabaygu caawiyey rasuulkee sidiiq cumar binu khadaab iyo cismaan binu carfaan culimadii diinta radiallaahu canhu meesha iyo cali abidaalib
buu diracna saaraaye kalaamullaahi weji wuu nagu daruuraa tan iyo duulkii nebigiiya calayhi salaam milatariga diintaanu nahay ee meero dabadaaye maba diriro jeeruu birgaydh aakhire u degay milatariga diintaanu nee meero dabadaaye daalacalmuluugga ayuu fadxigu nooga soo degayay maba diriro jeeruu birgaydh aakhire u degay digniin weeye taasiye mar bay kori daruuraaye gaalkii isdacafoorin jiray kibir daraaddiisa mar haddii nijaaskii la dilay daniya yeelkeedii damqashaduse hadday kaa dhab tahay dirira mooyaane docdayadani kaalayana waa digasho ceebeede doqon yahay qoslaysaa adaama daynka kuu galay war gaalkaba adigaa reer magaal reerkiinu badan yahay on ka dilay carruurtaadan isla ayuu gaalayna aniga xag reerkaygu waa reer miiguur eg halkaana magaras markaa sidaasuu cabdigahayr ahaa nin ku mayal cad had iyo goor waxyaabo kastoo ku yimaada adduunyada waayaheeda ayuu hadday xitaa isaga cuskato iyo hadday soo la sheego balaayo soo wajahan nin saa ugu calool adag buu oo midda kale caqiide islaamiyana markaad gabaygaasoo kale eegto aaminsanba soomaalida oo berigaa diinta ku dhaqankeedu ku yar yaraa inkastoo islaam ahay haddana ku dhaqanka diintu berigaa soomaalida aad buu ugu yaraa cilmiga diintana aad umay aqoonin oo dee waad ogti oo dee culimadeedu way yaray oo marka 100 kilomitir la socon jiray wadaadkii min heblaaye joogay inoogu yeedha haddana saasoo cabdigahay markaa saas ahayd muxsino aad iyo aad baad abwaan u mahadsan tahay sida wanaagsan ee gabayada iyo taariikhda abwaankaasi lahaa aad uga warrantay iyadoo barnaamijkan aynan ku daynin gabayada ama suugaanta cabdigahayr aynu kaga warrami doonno oo qaybtan ahayd qaybtii hore qaybo kale haddii la haydhaa ayaan isku dayi doonno in abwaanka aanu kaga warraysano gabayadii uu cabdigahayr lahaa qaybtanna intaasaan kusoo afmeeri doonnaa intaynu qaybtan iyo qayb lamida kulmi doonno waxaan kaga teganaa sidaas iyo ammaano alla iyo kulan dambe oo xiisa leh